warqadan waxay soo baxday April 20 bishii 7 2022 waxay ku socotaa mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa kale oo ay ogeysiin uga socotaa Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ujeedo codsi muddo kordhin horkeenida golaha shacabka xukuumadda cusub iyo barnaamijkeeda mudane gudoomiye tixraac qodobka 51 farqadiisa saddexaad ee xoosaadka golaha iyo qaraarka golaha shacabka tirsigiisu yahay GSH baarlamaanka 11 0222 kuna taariikhaysan 25 bishii 6 2022 qodobkiisa labaad ee ku saabsan in aan muddo 30 maalmood ka badnayn kusoo magacaabo xubnaha golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya kadibna horgeeyo golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya xukuumadda iyo barnaamijkeeda si golahu u siiyo codka kalsoonida mudane gudoomiye sida aad la socoto dalku wuxuu ka soo baxay doorasho kusoo gabagabowday muddo ka badan 18 bilood taasoo ay hareereysay is-aamin darro badan oo ka dhalatay kala aragti duwanaanta siyaasadeed ee xoogaga siyaasadda dalka haddaba si aan u soo dhiso xukuumad tayo leh isuna dheelitiran waxaa lagama maarmaan noqotay inaan waqti ku filan geliyo la tashiyada aan la sameynayo qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta dalka iyo bulshada rayidka ah si aan isu qancino intii suuragal ah sidaa darteed mudane gudoomiye waxaan si xushmad iyo qadarin leh kaaga codsanayaa in horkeenida golaha shacabka xukuumadda iyo barnaamijkeeda aad dib noogu dhigtaan muddo 10 maalmood ah oo ka bilaabanta 26 Luulyo kuna eg 4 Agoosto iga guddoon salaan qadarin leh mudane Xamse Abdi Barre ra'iisul wasaaraha xukuumadda